munaasabada ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee gobolka Saaxil uu soo magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudoomiyaha hore ee gobolka Saaxil ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda Urunta Badda ee magaalada Berbera. dadweyne aad u tiro badan ayaa ka soo qayb galay munaasabadii xil wareejinta. dadkuna way isugu jiray salaadeen, cuqaal, waxgarad, mas'uuliyiinta hay'adaha lamaha dawladda, xubno ka kala socday gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay gobolka Sanaag ayaa waxa halkaas hadallo ka soo jeediyay mas'uuliyiinta munaasabadaasi ka soo qayb gashay oo si weyn u soo dhaweeyay maamulka cusub ee gobolka Saaxil sidoo kalena hambalyeeyay siina sabootiyay gudoomiyaha hore ee gobolka Saaxil ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay wasiir ku-xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa halkaas hadallo dardaaran iyo waana isugu soo jira dhiirigelin isugu jira iyo sidoo loo shaqeyn lahaa maamulka cusub ka soo jeediyay xubno isugu jira salaadiin, cuqaal, waxgarad, aqoon-yahano iyo dad marjaaf oo ka soo qayb galay munaasabadaasi xil wareejinta ah. waxa iyaguna sidoo kale halkaas gabagabadii ka hadlay gudoomiyaha hore ee gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ahna gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale gudoomiyaha hore ee gobolka Sanaag ahna gudoomiyaha ku-xigeenka Nerad waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen mas'uuliyiintaasi cusub in xilka lagu duceeyo sidoo kalena la hambalyeeyo lana sheego waxqabadkoodii mas'uuliyiintii hore ee gobolka Saaxil. gudoomiyaha hore ee gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi oo halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay waxqabadkii kala duwanaa ee muddadii ay xilkaasi hayeen sidoo kalena halkaasi ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Saaxil loo soo magacaabay Fahmi Cali Bidaar. guud ahaanba maamulka iyo mashaariicda kala duwan ee ka socotay deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil sidoo kalena halkaasi ka waramay waxyaabaha ugu muhiimsan ee waqtigan ka socda gobolka Saaxil ee loo baahan yahay in halkaasi laga sii ambaqaado. halkan waxa ka socda xeebaha gobolka Saaxil ama waqooyiga gobolka Saaxil wadooyin waxa halkan laga bilaabay wadadii isku xidhaysay Raarifuul iyo Berbera oo imika socoto oo gacanta lagu hayo qalabkiina raantiisa tibi qaarnay iman doonaan adaara ka gudoomiyaha oo xilka ugu wareejin doono beeraha gobolka Saaxil 960 geed oo timira waa mashaariic socdo weey oo 5 meelood loo qaybiyo imika jira كل بقولك كذا تبيرنا ويمنيان إذا واحد وجانيس إن حبا قبل كصاحية وحكاش الشريعة يعني لما أنت تبي تقول بيريو كان واحد وجان دوتا إلى أنت تجاك. gudoomiyaha cusub ee gobolka Saaxil madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo magacaabay Fahmi Cali Bidaar oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo dhammaan shacabka gobolka Saaxil ku dhaqan u soo jeediyay inay la shaqeeyaan midna way ku gardaarayaan nabadgelyadaas inaa ku nooleeyadu naguma noola halka uu ka soo xoojin waa intaan baabalaynaa waxaan ku xidhnaan doontaa saad ila shaqeysaan sidaan u wada shaqeyno ayay ku xidhnaan doontaa in ragga ka badiyeen badiyaan. mas'uuliyiintaasi ka hor waxa halkaas iyaguna hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil sida gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo mas'uuliyiintaasi si weyn u soo dhaweeyay sidoo kalena hambalyeeyay maamulka hore ee gobolka Saaxil. munaasabadan oo ka dhacday xarunta jaamacadda Urunta Badda ee magaalada Berbera ayaa ahayd mid kulmisay dad aad u tiro badan isla markaana ay si weyn uga soo qayb galeen guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Saaxil. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.